Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada caawa iyo ciyaaraha falanqeynta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Manchester City, Manchester United, Chelsea iyo Arsenal iyo kulanka saaxiibtinimada ee ciyaaraha. Saaxiibayaal waxaa idinka codsanaya haddaad ku cusub tahay like iyo subscribe inay noo share gareysid inagu cimaamada inagu tuurtid si aad la wadaagtidna asxaabtaada. Ugu horeyn aan ku bilaabo ciyaarta ay saaxiibtinimada ee ka dhexeyso Manchester City iyo AC Milan. Manchester City iyo AC Milan ayaa caawa markay ay tahay 7 saac waa xilli ay tahay Axad 7 saac 6 saac markii laga gudbo 7 saac ayay soo galaysaa Manchester City iyo AC Milan. Halkaas America ay ku dhex mari doonto ciyaar saaxiibtinimo ah in aysan bilaabanin horyaalada. Waxaa refreshment ama diyaargarow aad iyo aad u weyn lagu sameynaya. Marka intii laga gaarayo bishii 8aad waxaa weeyaan waa la isdhisayaa, ciyaartooy tayo sare leh, qiimo sare leh ayaa lala soo wareegayaa. Kooxaha zaaid ayayna isku dhisayaan, waa aad iyo aad koox kasto way isdhisaysaa, booska ka jilcan ayayna iska dhisaysaa. Dhanka kale haddaan u leexdo Manchester United iyo Arsenal waa big game, waa sidii horyaalka Ingiriiska ee Premier League camal waay. Ciyaartan waxay soo gali doontaa beri 9 saac markii la gaaro, xilli 10 saac u dhowda 9 saac dhexda 9 saac ayay soo gali doontaa. Waa xilliga Mareykanka u tahay adiga waxaan u maleynayaa u dhawaad 9 saac la dhaaday 9 saac ayay soo gali doontaa ciyaartaas. Manchester United waxay la ciyaareysaa Arsenal markii ciyaartan laga gudbano ciyaar kale Liverpool waxaa isla ciyaari doona Manchester United, Arsenal iyo Liverpool ayaa isla ciyaari doona. Waxay ku wada ciyaar doonaan friendly match inay tahay, macnaha waa ciyaar saaxiibtinimo ah, tartanka ma dhexeeyo. Marka kulamadaas Arsenal, Manchester United iyo Liverpool aad iyo aad ay isku diyaariyeen. Kii dhagaha lagu dhuftana oo waa la arki doonaa, waayo Manchester United Arsenal way ka adag tahay Manchester United xilli ciyaareedkii hore aad iyo aadna ay uga adkeed. Dhanka kale Pep Guardiola oo maanta hadlay wuxuu dhahay waxaa laga badbadiyey haddii 2025 la gaaro waad ka tagaysaa, macnaha ciyaarahan waa xulalka qaranka ayaad u qabanaysaa, macalinimo ayaad ka noqonaysaa, club-yada waa iska dhaafaysaa. Pep Guardiola oo imaaday Manchester City 2016 oo u qaaday 6 Premier League oo xiriirta u qaaday, 4 oo xiriir ah oo u qaaday iyo 2 oo goos ka qaaday. Marka 6 Premier League iyo 2 FA Cup oo u qaaday Manchester City ayaa maanta ku waramay. Wuxuu dhahay aniga horta afkay kuma oranin inaan bixi doono oo heshiiskayga Manchester City uu soo idlaaday. Wax afkay aad ka maqasheen ma jirtaa ayuu dhahay. Marka waxaa weeyaan mayle waay. Marka wuxuu dhahay aniga waan ku faraxsanahay Manchester City, ciyaartooy fiican joogaan oo discipline leh. Koob badan ayaan qaadnay, 4 xiriir aan la sameyn horay, English Premier League aan laga sameynin ayaan taariikh ka dhignay. Waa history, waa baal cusub ayaan ka dhignay. Marka aniga waan sii joogayaa. Marka heshiiskiisa waxaa ka hartay 2025 ayuuna ku egyahay, macnaha 1 sano camal. Marka waxaa laga yaabaa in uu ugu sii daro heshiiskaas. Dhanka kale Chelsea war cusub ayaa u soo baxay. Chelsea waxay Lyon ka qaadanaysaa goalkeeper
aan caadi ahayn. Goalkeeper oo da-yar 22 jir ah ayay la soo saxiixanaysaa. Chelsea xagaagii hore booskii 8aad ayay ku dhamaysatay. Booskii ayadoo Europa League ay u dhaqaaqi rabto Manchester United ayaa inta FA Cup qaaday ayaa Conference League loo diray Chelsea. Marka xagaagan waxa weeyaan aad iyo aad ay isku dhistay. Chelsea waxa weeyaan waa koox lacag leh aan marnaba jixin. Enzo Maresca wuxuu doonayaa Chelsea in uu ku soo celiyo Chelsea-gii xagaagii hore ay ahaan jirtay markii ay caafimaad qabtay camal in uu ku soo celiyo tababaraan ayuu doonayaa. Marka Chelsea aad iyo aad ayay isu dhistay, waa lacag ay haysataa. Midkii rabto way la soo saxiixanaysaa heshiis dealka isla markiiba waa macnaha waa tig waay kama soo celin waay. Marka Chelsea goalkeeper-han ayay diyaar ula tahay, waana heshiisna way gaareen. Xitaa goalkeeper way la gaareen heshiis. Marka xagaagan reer Arsenal iyo Manchester United, Manchester City iyo Liverpool warbaa u yaalaa, waayo Chelsea way isa soo dhistay goalkeeper haddii la soo saxiixato bes waay. Dhanka kale Arteta kulankii caaba horta wuxuu la ciyaari doonaa Manchester United, waana uu soo bandhigay maxaa la dhihi jireen saxiixii Calafiori waa u imaaday, caafimaad ayuuna maraya. Laakiin kulankan saaxiibtinimada Manchester United kama qayb qaadan doono saan filayo. Laakiin kulamada kale ee soo socda waxaa laga yaabaa in uu ka qayb qaato. Calafiori daafaca ee reer Italy Bologna ay kala soo saxiixdeen. Marka Arteta wuxuu xitaa uu rajeynayaa in weeraryahan kale ee Gyökeres lagu magacaabo in uu la soo saxiixan doono, maadaama Calafiori uu soo degay London uu imaaday. Ninkan daafaca markaan Arsenal shub waay reer Chelsea iyo reer Liverpool iyo Man City warba u yaalaa shub ku tasho bulkeeti wax kaama taraya la dheh. Marka waxaa weeyaan Arsenal aad iyo aad ayay isku dhisaysaa. Xitaa ciyaartooy kala qadka dhex xitaa way doonaysaa oo way iska xoojinaysaa. Waayo tii xagaagii seasonkii hore dhammaaday camal ma rabto in mar kale noocaas camal in ay ku laabato. Waayo adigoo Premier League qaadi karo oo far adiga 3 inch ama 1 mitir kaliya oo ku dhaxaysa adiga aad gaari karto in 2 dhibcood laga qaado, xanuun bay leedahay. Marka Arsenal way ka fikirtay, waxayna u socotaa waxaa weeyaan in Champions League xitaa ay ku darsato oo xitaa Premier League ay qaado, FA Cup qaado. Waa history cusub, waa 20 sano oo koob la'aan abaar la'aan ka haysato. Marka Arsenal waxay doonaysaa inay iska soo jarto abaartaas ee 20 sano ee ku habsatay, inay iska soo jarto ayay doonaysaa. Waayo Liverpool xitaa abaartaas way soo martay 20 sano ayay koob la'aan abaar oo koob la'aan haysatay. Marka 20 sano markii la gaaray waxaa weeyaan koob oo soo afjartay. Xitaa Manchester United waa loo yaabaa, waayo 11 sano ayay u sii socotaa oo koob la'aan Premier League la'aan ee ka haysato. Waayo Manchester United lama dhihi karo way qaadi kartaa, sababtoo tahay waxaa weeyaan boosas badan ayayna doonaysaa in laga dhiso. Marka Arsenal waa iskeentay. Dhanka kale Bayern Munich, Vicente Kompany, Bayern Munich 4 kulan iyo 5 kulan ee saaxiibtinimo la ciyaartay. Kooxdan yar ee lagu magacaabo Rotterdam ayaa waxay ku dhufatay 84 gool. Waa mucjiso Bayern Munich lama sahlan karo. Bayern Munich saaxiibtinimo darteed waa la isku naxariistaa. Saaxiibtinimo kulan saaxiibtinimo la ciyaaraya waa intaan gool iska dhalinaya. Walla Bayern Munich wax bay u socotaa. Walla Bayern Munich waxay doonaysaa inay iska waabiso kooxahan ee Arsenal iyo Manchester United iyo
Barcelona iyo Real Madrid waxay rabtaa inay iska waabiso oo 4 kulan kale 4 kulan 100 goolna in lasii dhaliyo xitaa way sii doonayeen 48 goolal ah. marka Bayern Munich waxay dhalisay 48 gool. dhan kale Arsenal waxay saxiixan kale Fiore maadaama uu u dhamaaday uu u imaaday ay hubsadeen, waxay doonaysaa markaan kale xitaa la sheegaa ma ahan waa cad waa war cad, waxay doonaysaa ninkan Celtic u ciyaaro Gyökeres oo lagu magacaabo in dhaxda iyo weerarka Arsenal iska toosisa ayay doonaysaa. marka saxiixanitana weli way ku jirtaa. dhanka kale Yulka Erik ten Hag ayaa soo cabaaday markuu arkay Arsenal oo dhistay Manchester City oo dhan walba ka dhisan oo horyaaladii 4-5 xiriir xitaa 5 xitaa inay ka dhigtay doonaysa uu arkay warka soo yeeray kulanka Arsenal ee la ciyaarayaan oo laga qaaday waraysi. wuxuu dhahay Manchester United waxaan doonayaa dhinac kasta in laga dhiso, hadday noqotana daafac hadday noqotana in laga dhiso ayaan doonaa, marka dhan kasta in laga dhiso ayaan doonaya oo dhagu cabaaday odayga. dhanka kalena Manchester City isagana waxa uu soo baxay da'yar ninkan lagu magacaabo Bob lagu magacaabo waa da'yar ka soo baxay academic Manchester City. hadda kor waxay iska lumisay ninkan Palmer lagu magacaabo oo ciyaaro wacdarka dhigay Chelsea xagan Eurona ilaa final ka keenay ayaa ay iska lumisay. marka xitaa Jadon Sancho marka Manchester City waxaa leeyahay ma waxay cashar ka baratay labadii ciyaartoy Jadon Sancho iyo Palmer iyo koox iyo ciyaartoy kale ee iska lumisay, miyay iska fasixi doontaa ninkan oo wacdareeyay kulankii saaxiibtinimada ee la ciyaarayeen Celtic. marka Manchester City waxaa leeyahay cashar ayay ka barani doontaa, waayo ninkii ay iska dirtaba wuxuu ku soo baxaa dab aan caadi ahayn oo xitaa laga baqa. waa ka Palmer hadda ka wacdareynaya Chelsea xitaa Euro 2024 ilaa final keena xulkiisa qaranka England. marka ninkan Bob lagu magacaabo oo xitaa ka wacdareeyay Celtic ciyaartii saaxiibtinimo ahayd, isha ayuu soo jiitay, caalamka ayuu soo jiitay, kooxaha kale xitaa wuu soo jiitay. ninkan caadi ma ahan, waa nin da'yar ah oo ka soo baxay academy ah oo haddana oo maskaxdiisa u furmanayso oo da'yar ah oo xitaa oo dhex marayo daafacyada Celtic. marka Manchester City waxaa weeyaan cashir ayay ka baranaysaa. Manchester City caadi ma ahan, tookadan waa isdhisaysaa. ninkan hadda lagu soo daraa meel laga marayo malahan be wax xitaa kii shanaad horyaalkii shanaad xitaa way qaadan kartaa. marka reer Arsenal waxaan is leenahay mataqaana anagana aan isdhisno oo xitaa shub iska dhiga oo xitaa laba koob xitaa Premier League halka koob xitaa aan qaadno. aniga mugo reer Arsenal miya xitaa ma taageer, laakiin dhexdhexaad ayaan ka ahay. marka Manchester City ninkan Bob ayaa u soo baxay, waa u qaangaaray safka koowaad kooxda. waxaa laga yaabaa in lagu soo daro oo xitaa uu ciyaari karo sida Lamine Yamal. waa cunug da'yar ah oo haddana kooxdiisa heerka oo sare ka ciyaaraya. marka Manchester City ninkaas ayay iska barajeynaysaa. ninkan Bob ayaan u soo baxay, marka waxaa leeyahay cashir ha ka dhigato, cashir ha ka dhigto yaa kii hore aa iska bixiseen ma iska dirteen, marka cashir idinku noqdo wayaan. dhanka kale Everton oo war farxad leh ku noqonaysa Manchester United soo saartay, waxay dhahdeen waxaan helnay bedelka
Braithwaite ayaan helnay ayaa dhahday, waxaana ka helnay Lyon ayaa dhahday, waana center back lagu magacaabo O'Brien Jack O'Brien Allah. Manchester United ninkan Braithwaite aad iyo aad ay ugu mashquushay, laba dalab xitaa way ka gudbisay, waayo waa muhiim, daafac la-aan ayaa haystaa marka Manchester United. Inkastoo Leno Euro uu keeneen, waxa weeyaan kuma filno. Leno Euro iyo hadday isla qaataan maxaa la dhahayaa booskaas ay isku buuxiyaan ninkan qalayga ee lagu magacaabo Martinez yaa. Marka Manchester United weli daafac ayaa on ay u qabtaa, marka daafac xitaa dhaxda xitaa way rabtaa, marka way tahay saaxiibayaal. Marka Braithwaite hadday la soo saxiixato bes waa daafac kale uma baahnaanaysa, xitaa way rabtay ninkan Aaron Wan-Bissaka xitaa booskiisa nin kale inay ku bedesho xitaa way rabtaa Manchester United. Aaron Wan-Bissaka weli lagama hayo war inuu ka bixi doono Manchester United. Marka Everton marka warkan ay soo saartay wuxuu ku yahay war farxad leh ayuu u yahay Manchester United, waayo haddii ninkan lagu bedelo Jack Bryan, haddii booskii oo Braithwaite lagu bedelo Manchester United, Braithwaite way la qaadanaysaa, lama daahaysa xitaa, waayo war farxad ayay u tahay. Waayo inkastoo Liverpool Everton ay ka gudbisay, micnaha dalabka ay ku rabeen Braithwaite ay tahay midkii lamid ahaa kii Maguire flopkii noqday Manchester United Leicester City laga soo saacida camal ayay doonaysaa. Marka micnaha 80 milyan ilaa iyo 75 milyan euro ayay ku rabtaa. Marka Manchester United war farxad leh ayay u tahay, waa war sugan oo laisku haleyn karo weeyaan Manchester United. Waayo ninkan haddii marbo bedelkiisa la hele oo Lyon laga hele, Manchester United marka wax ay ka daahinaysa malahan, ma daahinaysa xitaa, way soo qaadanaysaa leh. Marka war farxad ayay u tahay reer Man United, war farxad ayay idin tahay. Ninkan Old Trafford ayuu mustaqbalkiisa yaala, waa da'yar weeyaan, waa wax waa ka qaban karaa Manchester United. Cuqubada oo ka haysato 11 sano koob la'aanka Premier League wuxuu ka qabani doonaa. Marka waxaa Manchester United xitaa odaygii yuulka ahaa Erik ten Hag xitaa wuxuu dhahay boos kasta waa laga dhisay, in laga dhisayaan doonayaa aska baraje Manchester City iyo Arsenal iyo xitaa aan noqona u dhahay Real Madrid England camal inaan noqona weeyaan. Manchester United oo la soo saxiixatay Leno Euro iyo Joshua Zirkzee ee la soo saxiixatay, markaan xitaa Ugarte xitaa wuu imaanayaa, heshiiskii waa laga gaaray, xitaa Yusuf Fofana xitaa wuu imaan karayaa Manchester United haddii ay xoog ay saarto, ninkaas wuu imaan karaa. way tahay saaxiibayaal, waxaa idin leeyahay habeen wacan oo wanaagsan. Waxa aan sugnaba waa ciyaarta Manchester United iyo Arsenal iyo AC Milan iyo Manchester City iyo ciyaaro kale. Habeen wanaagsan, nabadiina.